jaaliyadda magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa si weyn u soo dhaweeyay Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco kaasi oo safar ku maraya qaar kamid ah wadamada Yurub. Munaasabad culus oo lagu soo dhaweynayo xildhibaanka ayaa waxa ka soo qayb galay haween, fanaaniin, abwaano, asxaabta xisbiyada Somaliland iyo dadweyne kale oo isaga kala yimid gobolada kale ee Ingiriiska. Odayaal, cuqaal, waxgarad, abwaano, haween iyo marsharaf ka hadlay munaasabadan ayaa xildhibaanka ku sifeeyay halyay howlkara samafale dhiirigeliye ciyaareed iyo qof ku suntan horumarka magaalada Burco iyo guud ahaan Somaliland. aad iyo aad u firfircoon oo gobolka Togdheer runtii Somaliland oo dhan u shaqeeya gobolka Togdheerna runtii qurux weyn iyo hawl aad iyo aad u fiican ka qabtay xildhibaan wadanka UK waan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan waan ku sagootineynaa reer UK had iyo jeer ale waxay qiimeeyaan qofka dalkiisa dadkiisa wax u qabta laakiin kaan waxba u qaban ma soo dhaweyno taasay waxaan ku jeclaaday Mubaarak sida uu dhalinyarada ciyaaraha had iyo jeer u garab taagan yahay ee marka la joogo gobolka Togdheer waa xildhibaanka kaliya ee aan filayo inuu ka soo baxay hawshii loo diray Mubaarak waa ragga ugu aktifsan ama xildhibaanada ugu aktifsan Somaliland. xildhibaan waad nagu weyn tahay toddobadii iyo barkii iyo 7 mirir baa shaqo ka soo baxay adiga dartaa baanu yimi waayo waa sideed noogu weyn tahay runtii ah shakhsi qaaliya saddex cishaan joog saddexda cisho wallaahi waa anoo fajacsan bayaa run ahaantii waayo Burco oo dhan oo oranaysa wada Hargeysan ka tago oo xildhibaan kaba la arki karin halka marka tagana bidhi waaba de meeshaba war waxaan nare abti hadaba sidan tahay dad ma maayir isku soo sharaxday baan ku aynu ka baranay Bidhi oo aynu ku naqaano aqal badan iyo garaad badan iyo daacadnimo badan waxaan leeyahay welcome to London intii waxay ka dhigo xildhibaanku anigu xildhibaan Bidhi marka xildhibaankan waxa ku oran lahaa adigu waxa u tahay vowmudu waa xisbiyadu waa ka wada mid waxa qabadkiisa halkaas loo soo boqolay waxa kale saraan uga sida jaaliyada Shaafiil oo matalayo dawra wadanka waanu hambalyeeyaa Burcana Somaliland meesha ugu qurux badan baa heedeen soo arko dhamaantiin ba Mubaarak Yuusuf Cilmi waan soo dhaweynayaa Mubaarak waa ciyaartoy waa xildhibaan waa samafale xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo la hadlayay dadka sida mugga iyo miisaanka lagu soo dhaweeyay ayaa uga waayo waramay dalkii iyo horumarka ka socda waxaana ugu baaqay jaaliyadda London ee reer Somaliland inay midoobaan oo ka qayb qaataan horumarka ka socda dalka ay soo sharaftay ay London iyo meel walba taadeen hebel haddana runtii cid baa ka tagay laakiin dhammaantii waxay iga mudantii sharaf karaamo aad baan idin jeclay sida ay karaameyseen waa runtii waa muhiimada dawladda ama su'aasha meel kasta tagay way weydiiyay hadday bislantay iyo hadday ka dhaftay hadday been hantay waa madaarkii Burco oo intan garanayo xidhnaa runtii waxa la soo wareejiyay oo madaxweynuhu noo sheegay in madaarkii berbere laga dhisayay in loo soo wareejiyay Burco oo gobolka Togdheer wuxuu leeyahay xooluhu dhaqaalaha kaliya uu leeyahay waa xoolo marka cashuurtii halkaa taala way ka maqantay gobolka gudoomiyaha baarlamaanka baash iyo guddigiisa fulinta iyo guddi hoosaadka arrimaha gudaha dacwad qoraan baan u dhiibay aan ku doonaynay in loo soo celiyo cashuurtii ay lahayd gobolka Togdheer maadaama aan u baahannahay waxaan kor u sheegnay in aan u baahannahay in ama cashuuraha dalka la mideeyo oo si isleeg loo qaybiyo doorashooyinka way dhamaadeen jaaliyadda Somaliland iyo UK inay midoobaan UK safiirka loo soo magacaabay UK inaan la shaqeyn doonto sida safiirada hore loo shaqeyn jirteen ayaan iyagu goonay inaan la shaqeysaan Absaaq Faarax Abdullaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.